السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan bilaabaynaa casharkeeni koowaad ee ku saabsan fractionska ama jajabiyada sida mataqaana aan naqaano jajabiyadu saa magacooda ka dareemaysaan waa shay la jajabiyay ama aan dhahno waa parts of a whole macna waa shay kamid ah shay isku dhan qayb kamid ah ama qaybo kamid ah ayaa waxaan ku tilmaami karnaa jajabiyo aan ku tilmaami karnaa marka jajabku qaacidooyin badan ayuu leeyahay oo isagoo ayaa mataqaan noocyo kala badan leh laakiin inta badan hadda waxaan soo qaadanaa qaybaha ugu hordhacsan oo ardaygu inuu markuu kala fahmo weeye muxuu yahay half maxaa laga wadaa ama 1 divided by 2 2 divided by 4 1 divided by waxa adigii afarada in kala fahmaan ma fiican in qof hadii la iska dhaho kan 1 divided by 4 weeye ama 2 divided by 4 weeye ma kala garanayo ma yarka marka laakiin in la kala fahansiyo aad u fiican tahay weeye marka hore waxa uu aataa in sidoo kale uu leeyahay jajabiyadu wax la yiraahdo sareeyo iyo hooseeyo in leeyihiin taas in kala ogaataa lambarka marka hadda uu dhahayo oo ama saan uu dhahayo 1 divided by 2 loo dhahayo kana waa hooseeyo kana waa sareeyo in ogaataa tiradan sare waxay tilmaamaysaa inta ay haysato macnaha ad partiska qaybta adu ah haysato qaraha kontaan wala kan qare isku dhan weeye kaasoo kale waxa loo yaqaan waa hall waa shay isku dhan jajab ma noqonayo kan waa 1 buu noqonayaa 1 waa shay isku dhan weeye laakiin hadda kan oo kale dhinacna uu noo calaamaysan yahay dhinacna nooma calaamaysana dhinaca noo calaamaysan waxay tilmaamaysaa waxa anagu haysano macnaani Axmed iyo Cali baa iska le baan qare u soo iibiyay qare marka u soo iibiyay Axmed qaybtan baa siiyay Soomaan qaybtan kaliya leeyahay Cali qaybta kaliya leeyahay ka dhigantaa marka Axmed markan kiis xisaabina maxaa la Axmed wuxuu haystaa 1 divided by ama 1 over 2 buu haystaa ama half waa haystaa Axmed Calina half waa haystaa mid walba half waa haystaa macnaha kana half waa haystaa kana half waa haystaa bay ka dhigantaa marka see waa u dhigi karnaa marka kana half waa haystaa marka hore kan sareeyaha lambar 1 kan wuxuu tilmaamayaa Axmed ka soo qaado Axmed half waa haystaa baan moogta halkan kore wuxuu tilmaamayaa Axmed wuxuu haysto dhinacan Axmed haystaa طبعا هيه dhinacan laakiin hoosayahna muxuu tilmaamaya wuxuu tilmaamayaa shayga guud ahaantiis inta ku kooban yahay waa laba dhinac Soomaaliya waa dhinacan ku kooban yahay qaruhu in half way qara hoosayaha wuxuu tilmaamayaa shayga guud ahaantiis inta ku kooban yahay laba dhinac marka saas uu noqdo dhinacan waxa weeye shay laba dhinac ayaanu dhinac ka haystaa weeye maxay dhigan tahay shay laba qariyo oo labada loo kala jeexay anu half waxa haystaa qayb kamid ah haystaa qariyo laba dhinac loo kala jeexay saas ka dhigan tahay marka fractionku waa saas weeye waa shay mataqaana la kala qaybiyo weeye marka kan muxuu noqonayaa kan waa 1 divided by 3 mid yana ka ilaawine shayga jajabka markuu u dhahayo waa in partisku ay sileekaadaan equal waa inay noqdaan waa in adas kanoo kala biiri shay saa markuu yahay haddii aan dhexda u kala baro waa caadi sida tanoo kale hadaan way sileeyihiin labada dhinacba laakiin haddaan saan dhoo fiiri qaybtan taas dhoo fiiri qaybtan laba qayb hadda laba qayb ma noqonaysaa ma noqonayso sababta qaybtan aad buu yahay qaybtan aad buu u weyn taas darteed waxaan fraction ma noqonayo jajab ma noqonayo way kala weyn yihiin marka waxa la rabaa equal parts baa la rabaa inay noqdaan markaan saa dhahayo waxa macna la rabaa in dhinacyada isleekaadaan markaas uu jajab saygu ku noqonaya marka ka soo tag hadda 1 divided by 3 baan niri dhinacan iyo dhinacan waa saddex dhinac saddexdan maxay tilmaamaysaa saddexdan waxay tilmaamaysaa dhinacyada guud bay tilmaamaysaa halkan waa 1 ama halkan 1 iska dheh halkan 2 iska dheh halkan 3 iska dheh saddex dhinac bay tilmaamaysaa lamarka hooseeya halkan wuxuu tilmaamayaa halkan wuxuu tilmaamayaa dhinacan uu haysto dhinacan baa haystaa ka Axmed ahaan dhinacan baa haystaa marka waxa noqday Axmed wuxuu haystaa hal dhinac oo kamid ah saddexda dhinac macnaha shaygan qarahan saddex baa loo kala gooyay macna saddex baarti buu leeyahay ama saddex baarti buu leeyahay saddexda baarti qayb kamid ah anu haystaa weeye baan joogaa labada dhinac oo dad ba iska leh ka soo qaado laba dhinac baan u haystaa muxuu noqonayaa markaas dhinacan ana leesiyay ka soo qaado qarihi dhinacan baan leesiyay laba dhinac baa leesiyay marka wuxuu noqonayaa hooseeyuhu waa saddexda wuxuu ku noqday sababtoo ah qaruhu saddex dhinac buu leeyahay 1 2 3 marka saddexdaas waa markaas waa inta uu shaygu ku kooban yahay shayga guud ahaantiis korna maxaan saari doonaa hadda hal baa saaraya ma saarayo sababtoo ah marka laba dhinac baa haystaa labaan saaraya marka haye haddeer ka soo qaado qaybta saddexaad anaa la siiyay kulli anaa isku qaatayba
muxuu noqonayaa markaas shaygu marka hore saddex dhinac uu leeyahay saddexdii dhinacna anaa la isiiyey saddexdii dhinac waa caamsan anaan qaatay bay ka dhiganta marka saa ula socdo marka 1 divided by 3 2 divided by 3 3 divided by saas ku noqon saas u kala fahmay